inta badan waxaanu aragnaa waxyaalaha caadiga dadku sameynayaan taasoo abuurta nolosha caadiga dadku ay ku nool yihiin adigana aan kuu abuuraynin hamigii ama dhiirigelintii waxaad u baahantahay inaad hesho waxaana kaa dhex guuxaya waxyaala fara badan runtii taasoo laga yaabo inaad doonaysa caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba inaad abuurto iyo fursaddii aad u baahnayd inaad hesho haddaba haddii aad samayso 3 qodob aniga ii shaqeeyay adigana kuu shaqayn kara waxa macquul markaa inaad guushaad u baahnatay gaadho qodobka koowaad wuxuu yahay inaad raadiso fursaddii ku habboonayd isbeddelka aad doonayso iyo waxaanad rabto inay ku abuurto waayo waxaad u baahantahay inaad samayso wax dad kale aanay samaynaynin saad u hesho waxaanay dadka kale helaynin taasoo adigana kuu abuuraysa farxad iyo isbeddelka aad doonayso inaad adeegsato qodobka labaad oo isaguna ah circle influence dadka kugu hareeraysan oo iyaduna qayb muhiima ka qaadanaysa oo kuwan aynu u baahanay inaan beddelaa san u helo kuwa inugu dhiirigelinaya isbeddelkeen doonayno ama samaynaya waxaan u baahanay inaan helo qodobka saddexaad oo isaguna aad u sii muhiima waxaad akhrisanayso iyo waxaad dhegaysanayso oo ka qayb qaadanaya shakhsiyadaada horumarineed iyo kobcintaada maanahaaneed oo runtii beddelaya nolosha sidaad u arkayso iyo sidaad fursadaada u raadsanayso taas markaa waxay dhisi doontaa isbeddelka aad doonayso inaad hesho haddii aad isla hesho 3 qodob waxaan rajaynayaa sanadkan inuu noqon doono sanadkii guulaha noloshaada abuuri lahaa weligaa ha is dhiibin